Hi, kusoo dhawaada King Birqay. Maanta waxaan idiin sharaxi doonaa filim cabsi ah oo soo baxay 2015. Magaciisuna yahay 12 Feet. Daawo oo taxadar. filimku wuxuu ku bilaabanayaa barkada dadweynaha ee Kiitia, halkaas oo maamulaha Magritte uu soo dhayo goosiis sheegaya in la xiri doono barkada isbuuca fasaxa. Dhanka kale, Bree ayaa dabaalanaysa kaliya waxay qaadanaysaa nasasho si ay ula socoto heerarka glucose-ka dhiiggeeda. Waxay kaloo xidhan tahay faraanti diamond ah taasoo ay ku fikirayso inay iska bixiso kahor inta aanay ku noqon barkada. Banaanka goobta baabuurta la dhigto waxaa ku sugaysa walaasha Jonah. Waxay ku dhex jirtaa gaadhigeeda iyadoo aan hubin inay galayso gudaha in kale. Daqiiqadeer kadib waxay go'aansatay inay gudaha gasho. Teleefankeeduna waxay kaga tegaysaa sanduuqa gaariga, waxayna gudaha u gashay dhismaha iyadoo u soo dhawaatay walaasheeda kadib markii ay xiratay dharka dawaasha. Bree aad ay u faraxsan tahay inay aragto iyada sababtoo ah muddo dheer isma aysan arag, sababtoo ah Jonah waxay ku jirtay baxnaanin, laakiin hadda 3 bilood ayay fiican tahay. Sheeko yar kadib, Jonah waxay Bree la gashay barkada dhexdeeda. Waxaan aragnaa waardiyada Clara oo isku dayaysa inay ka xad lacag mid ka mid ah boorsooyinka la iloobay. Magritte ayaa ku qabtay falka, wuxuuna u sheegay inuu ka qomameynayo inuu wax wanaagsan oo iyada ku saabsan u sheegay taliyaha sii deynteeda awgeed, laakiin ka hor inta aanu shaqada ka ciirin wuxuu u sheegay inay dhammaysato shaqadeeda si ay u baxdo. Gabadhihii walaalaha oo iska sii watay dabaashooda ilaa uu Magritte u yimaado si uu ugu sheego inay baxaan, laakiin Johanna ayaa sheegtay in barkadu ay furan tahay ilaa 7 macnaheedu ilaa halka saaxiibinimo. Magritte waxa uu sharaxay inay xidhaan barkada waqti hore xilliga fasaxa. Wuxuu kaloo u sheegay in dadka qaar ay tahay inay bartaan sida wax loo akhriyo taasoo Jonah ka xumaatay. Gabdhuhu waxay ka soo baxeen barkada oo waxay bilaabeen inay isqalajiyaan. Bree oo rabtay Jonah inay tuso faraantigeeda ayaa waxay ka weynaysaa boorsadeeda. Jonah waxay eegtay biyaha oo waxay aragtay faraantigii oo ku dhigan birta ku taal barkada gunteeda. Bree ayaa markiiba ku soo booday barkada si ay u soo saarto faraantiga. Si kastoo ay u jiido, way awoodi weyday inay ka fujiso birta. Jonah ayaa iyaduna soo booday si ay u caawiso. mar haddiiba labadii gabdhood ay biyaha hoostooda ku jiraan, dadkii kale ee joogay meeshana ay tageen, Magritte wuxuu ku fikiray in aysan cidna ku harin meesha, wuxuuna bilaabay broseeskii lagu xirayay barkada. nasiib xumo, timaha Jonah waxay ku dhigeen birta, gabdhihiina waxay ku mashquulsan yihiin inay iska furaan oo ma aysan dareemin daboolka fiber glasska oo lagu sii xirayay barkada dusheeda ilaa ay meeshii ku xayirmatay. Hadda way xayiran yihiin. Walaalaha waxay bilaabeen inay garaacaan daboolka, waxayna u ooynayaan caawimaad, laakiin Magritte mar hore ayuu iskaga tegay dhismaha. Hadda Jonah waxay u malaynaysaa inuu si ulakac u sameeyay Magritte ficilkaas. daqiiqad yar kadib waxay go'aansadeen inay isku inay kor u qaadaan daboolka si ay u arkaan sida uu adag yahay, laakiin dabcan ma u suuragalayso. Bree ayaa waxay soo jeedinaysaa inay hubiso dhammaan waxyaabihii jajabay iyo cidhifyadii si u aragto haddii ay meel daciif ka heli karaan. Intay hareeraha eegaysay, Jonah waxay ka heshay 2 jab oo dabaasha iyo dalool uumi ka samaysan oo fiber glass ah. Intay kala jibisay ayay isku dayday inay aragto godka daboolka ah ee jeexjeexa leh, iyadoo Jonah ay sii wado hadallo xunxun iyo hadallo jees ah, gaar ahaan marka ay u sheegtay inay la guursatay saaxiibkeed David. Waxay tilmaantay intaasi aysan ahayn qaladkeeda, taasoo Jonah ay u quustay oo ay u sheegtay inuu yahay seegeeda dhabta ah. Jonah waxay xasuusay Bree inay ku adkeyd baxnaaninta oo ay ka sii dartay markii ay soo noqotay oo aanay walaasheed guriga ka helin. Bree way ka cudur daaratay oo waxa u sheegtay inay hadda haysato nolosheeda gaarka. Jonah waxay dareemaysaa inay hadal u duugayso. Bree ayaa sheegaysa in walaasheed ay tahay tan ku turtay faraantiga biyaha, wayna xanaaqaysaa waxayna galaysaa barkada gunteeda oo waxay isku dayaysaa inay mar labaad birta ka furto faraantiga. Markaana way ku guulaysatay. Bree ayaa dib u soo laabatay, waxayna aragtay Jonah oo daboolka ee jeexjeexa ku goynaysa gacanteeda. Waxay u sheegtay inay u malaynayso in barta ay jabin karto, laakiin aysan xoog hayn. marka ayay Jonah weydiisatay caawinaad, ma aysan aqbalin sababtoo ah waxay u malaynaysaa in aanay macno lahayn. Si lama filaan ah ayay maqleen teleefon codkiisa. waa teleefonkii Bree oo David soo wacay. tani waxay siinaysaa Bree inay rajaynayso inuu ogaan doono inay dhaqso u baxayso, laakiin Jonah waxay ku eedeynaysaa inay yeelatay dabeecado xunxun oo qalafsan. Bree ayay dib u muquurtay oo isku dayday inay birta iska saarto iyadoo aan faa'iido lahayn. Habeenkii ayaa galay. Jonah waxay sii wadaa inay raadiso meel daciif ah, halka Bree ay taagan tahay gidaar iyadoo u muuqata mid aan fiicnayn. Kadib markii ay ku murmeen David oo mar kale soo wacay, Jonah waxay dareentay xaaladda walaasheed waxayna weydiisay wax khaldan. Bree waxay sheegtay in laga helay cudurka macaanka 3 sano ka hor, ay u baahan tahay talaalkeeda, taasoo ay kaga tagtay boorsada. Haddii ay dhaqso u qaadan weydo, waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo miyirbeelka macaanka. halka
Clara ay ku soo laabanayso dhismaha si ay u dhamayso shaqadeeda. Bri iyo John ayaa isku bedelaya iyagoo arkaya daloolka daboolka. John waxay aragtay calaamadaha gubashada ee ku yaal gacanta Bri, waxayna tilmaantay inaysan weligood ka hadli karin arrintaas sababtoo ah la taliyaheeda baxnaaninta ayaa kula taliyay. Waxay doonaysaa inay ogaato waxa run ahaantii dhacay maalintii aabahood dhintay, maadaama aanay waxba xasuusan oo ay garanayso oo keliya jajabkii kagooyada hooyadood oo Bri ay u sheegi jirtay sanadihii la soo dhaafay. Bri waxay aabahood ugu yartay bahal, waxayna u sheegtay John habeenkaas inuu soo noqday isagoo sakhraansan oo sigaar cabaya, sigaarkiina uu ku dul dhacay barkimo meesha yaalay. Dab ayaa isla markiiba kacay, madaxana ka qabsaday, laakiin ma uusan qaylin sababtoo ah aad buu u sakhraansanaa, xitaa ma dareemin wax dhacaya. Sheekadooda ayaa si lama filaan ah u gooday markii Clara ay soo gashay qolka. Waxay aragtay boorsada Bri markuu telefonkeedii la soo wacay, waxayna u soo dhawaatay inay xado markii ay si lama filaan ah u maqashay gabdho ka dalbanaya gargaar. Clara waxay weydiisay sidii halkaas ugu xayirmeen, waxayna u ogolaatay inay wada hadlaan inta ay eegayso boorsada Bri telefonka oo ay istaagi doonto kaliya markay aragto kaamaradaha amniga inay ka leexdeen. Kadib waxay u sheegtay hablihii inay sugaan 1 daqiiqo. Waxa ay tagtay qolkan kontaroolka si ay u dumiso kaamaradaha. Kadib waxay timi barkada oo waxay weydiisay gabdhihii su'aalo yaab leh, kadibna ay codsatay baasawirka telefonka. Bri way siisay iyadoo u malaynaysa inay u wici doonto booliska, laakiin taa beddelkeeda Clara waxay bilowday inay sawirada iyo arrimaha David mashquusho. John way u dul qaadan weyday, wayna caaday. Kadib Clara ayaa joojisay fiirsiga telefonka, waxayna sharaxday in lagu leeyahay biilal badan oo laga rabo inay bixiso, aysan helin shaqo fiican markay xabsiga ka soo baxday. Kadib Clara ayaa tiri haddii aad rabtaa inaad dibadda u soo baxdaan, Bri waa inay siisaa pinka ATM-keeda. walaaluhu marka hore maysan aqbalin, laakiin Clara waxay dimisay kuloliyaha, waxayna ku wajabtay inay biyaha barafeeyaha ku daari doonto. Bri ma haysato doorasho kale oo aan ahayn inay siiso waxay rabto. Clara waxay qaadatay boorsada Bri, walaalihiina laabta ay isgeliyeen si ay diirimaad u helaan. dhowr saacadood kadib Bri waxay si daran u dareemaysaa qabowga. John waxay go'ansatay inay tahay markeeda si ay isugu daydo inay birta furto, laakiin cabsidu uma ogola inay xataa u dhawaato. Markay dib u soo laabatay waxay dareentay Bri inay seexatay. Waxay u degdegtay si ay u kiciso, waxayna qiratay in aanay xataa isku dayin birta oo isku sheegtay inay bilaa faa'iido tahay, iyada oo rajaynaysa inay maalin noqon doonto walaasheed oo kale. Kadib John waxay isku dayday inay aragto daloolkii, taasoo Bri ay u malaynayso inuu tamar khasaarinayo, laakiin John waxay ku dhaqaaqidu waa waxa kaliya ay samayn karto si aan diirimaad u helno. Bri waxay ku riixday inay ka hadasho isku daygeeda isdilka. John waxay sharaxday inay dareemayso inay gudaha ku haysato bahal oo cunaya. Aabahood ayaa ku xadgudbay, codkiisuna weli maanka John kama bixin. si lama filaan ah ilka soo muuqatay godka daboolka ayay ka naxeen walaalaha. Waa Clara oo ka cabanaysa Bri oo kaliya 8 euro ugu jirta akoonkeeda bankiga. gabdhaha walaalaha ayaa ka baryay inay caawiso Clara. way xanaaqday iyadoo sheegtay inaysan gaar ahayn sababtoo ah iyaduna waxay leedahay dhibaatooyin gaar ah. kadib waxay u sheegtay inay ku fikirayso inay halkaan uga tagto si ay u dhintaan. Clara waxay ka baxday qolka si ay u soo ururiso fikradaheeda. John ayaa heshay fikrad, waxayna bilowday inay jeexjeexida plastikada ee gidaarka oo intaysan u yeerin Clara. markay soo noqoto John waxay iska dhigtay inay oonayso, si tartiib ah ayay si olokaca uga hadlaysaa Clara. markay dhigto godka saarto si ay si fiican u maqsho, John waxay ku muday jeexjeexi. Clara oo aad u cadhaysan ayaa aaday musqusha si ay u hubiso dhaawaceeda. kadibna waxay gashay qolka kontaroolka si ay u shido mashiinka nadiifinta barkada, taas oo keenaysa in habluhu ay bilaabaan inay ku neef qabatoobaan kaloriinta. waxay isku dayayaan inay gacmahooda ku xanbaan sida jiridada dabaasha ay hore u heleen, laakiin waxay caddeeyeen inay aad u xoog badan yihiin biyaha. dhowr ilbiriqsi kadib Bri way miyir beeshay. John ayaana isku dayaysa inay ilaaliso Bri si aysan u qarqoomin. John ayaa u sheegtay Clara inay dilayso. tani waxay Clara ka dhigaysaa inay garwaaqsto khatarta ku jirta walaalkeeda. sidaas darteed way u naxariisatay oo waxay ku soo noqotay qolka kontaroolka si ay u dumiso mashiinka nadiifinta. markay soo noqotay waxay u sheegaysaa walaalaha inay tahay hadda aan gacanta ku hayso kontaroolkooda, waxayna ka dalbanaysaa Bri farantigeeda inay iyada siiyaan si ay xorriyadooda u helaan. John ayaa u sheegtay inaysan sameynin midaas, laakiin Bri way aqbashay iyadoo aragta inaysan option kale haysanin hadda oo ay haysato farantiga. Clara waxay ka baaxisaa qolka. Bri
waxay u dabaalanaysaa dhinaca ka soo horjeeda barkada waxayna iska dhex seexatay barkada waxay ku riyootay in David uu keeno debdemiye si uu badbaadiyo laakiin walaasheed ayaa sii qorqoontay markay kacday waxay la kulantay Jonah oo qoorteeda jaaxaaga iskaga haysa kuna fikirayso inay isdisho Bri ayaa la hadashay oo u ballan qaaday inay la joogi doonto marka waxaanu dhan dhamaadaan Jonah way ka cudur daartay oo isku duubtay walaasheed dhanka kale Clara waxay eegaysaa Farantiga waxayna dhageysanaysaa fariimaha David waxay isku dayaysaa inay go'aan ka gaarto markay ku noqoto barkada Bri waxay u sheegtay Jonah inay raacdo hoggaankeeda gabdhuhu waxay u sheegeen Clara inay og yihiin inaysan ahayn bahal Clara waxay dareentay xumaan iyadoo ugu dambeyntii aqbashay inay caawiso laakiin markii ay tagtay qolka controlka ayuu u shaqeyn weynaa mashiinka waxay u sheegaysaa gabdhaha arrintan waxayna ka codsadeen inay wacdo booliska bedelkeeda laakiin Clara waxay ka baqaysaa inay ku noqoto xabsiga sababtoo ah waxay ku dhawaatay inay disho markii ugu horeysay markaa kadib waxay boorsada Bri ku celisay kuraasta wayna isaga tagtay dhismihii dhowr saacadood kadib Bri aad bay u daciiftay Jonah ayaa u timid si ay u hubiso Bri waxay qiratay waxay samaysay waayo waxay aragtay wixii aabahood u sameeyay Jonah markuu qolkeeda gali jiray waxay go'aansatay inay disho bahalkeedii sidaas darteed habeenkii dab ku dhacay iskuma aydiin inay toosiso dab ahaantii ayay hoos u dhigtay si uu dambaska ugu gubto oo nolosha uga baxo Jonah waxay u sheegtay inay tahay markeedii ay qaadi lahayd hadda markaa kadib markay ka tagtay Bri waxay ku dulansatay barkada wayna quustay oo waxay isku dayday inay mar kale birta ka saarto labadeedii isku day oo hore way ku guuldareysatay laakiin waxay heshay fikrad saddexaad hadda si fudud ay u jiidi kartaa waa inay laba jeer isku daydo ka hor intaanay ugu dambeyn isdhiibin Jonah waxay aragtay Bri oo miir daboolan kadib afka ayay af u saartay si ay neef u siiso kadib waxay adeegsanaysaa birta si ay u garaacdo daboolka fiberglasska ugu dambeyntiina waxay ku guuleysatay inay jibiso ugu dambeyntiina meeshii way ka soo baxeen laakiin walaasheedii weli way miir daboolan tahay markaas Jonah waxay keentay boorsada iyadoo ka raadisay qaliinkeeda insulinta waxay siinaysaa Bri talaalkeeda kadib aakhirkii ay soo kacday Bri farxadooda waxay ahayd muddo gaaban sababtoo ah Clara ayaa si lama filaan ah ugu soo hor muuqatay iyadoo ku haysa bistoolada iyadoo damacsan inay disho sababtoo ah waxay ka baqaysaa in gabdhaha ay sheegaan Jonah ayaa u sheegtay inay fahamtay inay wax badan soo martay waxayna ka baraysaa in aanay waxba ku sameyn Bri sababtoo ah wax kaliya ay haysato Clara waxaa gashay naxariis iyadoo iska dhigtay bistoolada waxayna dib ugu soo celisay Farantigoodii Jonah ayaa qabsatay telefoonka Bri oo wacday booliska laakiin waxay kaloo u sheegtay Clara inay baxdo ka hor intaanay imaan filimku wuxuu ku dhamaanayaa Bri ku toosaysa iyadoo dul saaran umbrello kuna hareeraysan dhaqaatiir caafimaad iyo walaasheed Jonah ayaa dib ugu celisay Farantigii Bri ayaa weydiisay sida ay ku soo celisay Jonah ayaa u sheegtay inay dileen bahalkii gabdhihii walaalaha ayaa hab isiinaya ka hor inta aysan shaqaalaha caafimaad ka qaadin Bri xarajeyna inaan muuqaalkan wuxuu si geliyay fadlan haddii aad ka heshay like saar haddii channelkeena ku cusub tahayna subscribe saaro ayna muuqaalo dambe insha Allah nabadgelyo